joogtay markii maxamuud iyo saaxiibkii ay u tallaabeen halgankii somalilan lagu xoreynayay ee snm isla markaasina magaalada waabacdo ay kula kulmeen dhammaan intii badneed ee madaxdii sarsare ee ururkii snm sidaana si rasmi ah oo ugu biiray haddaba waxaa jiray howlgallo fara badan oo suldaanku uu ka qayb galay oo ka mid ah howlgalladii halgankaasi waddanka somalilan lagu xoreynayay dagaalada waaweyn ee uu ka qayb galay ee mucjisooyinka faraha badanina ay ku ladhnaayeen waxaa ka mid ahaa dagaalkii buuraleyda sheekh waxaa uu ka mid ahaa halgamayaashii dagaalkaasi ku jiray dagaalka oo markii dambe ay xaaladdu adkaatay ay kooxiba meel ka baxday 10 meel ka baxeen 3 meel ka baxeen sidii la isku raacay karayay oo ay noqotay naftaada badbaadi haddaba bal dagaalkaas marka hore sidii uu dhacay iyo sidii uu isagu iyo kooxdii uu la socday ay u badbaadeen iyo dagaaladii ay la kulmeen duruufihii qabsaday ayaan jecelahay qaybtan in uu inooga warramo halgamaa suldaan maxamuud axmed xasan مجاهد محمد وذادي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. وها هذا ودي سي أحمدو مركي آنو أفريستيتكي بورها قليني بقصة بورا قلي استكوت مدنا وقرنا سعيدة كي سيد عليها كصوبحي أواره مركي أي برعدور رميش للا سودقين وركي وفقاضي تلسكي محمد سياد برre ciidankii ay ugu tala galeen inay baabiyaan xooga markaa u soo baxay snm ee ururkii sayid cali loola jiray dee kumanay baabi'in dee waxa weeye iyagaa ku jabay oo iyaguna jabkoodii u horreeyey ee ugu weynaa ee gaadhay ayay ka mid ahayd markay dagaalkaa soo qaadeen way dheertay laakiin waan soo koobkoobayaa waxaan ku soo koobkoobayaana inta muhiimka ahun markii dagaalkaa laga baxay go'aan waxa la gaadhay in la galo buuraha ciidan hore oo galbeedka ka galayna wuu jiray markaa oo ka soo baxay annagu markaa waxaanu ahay ciidankii kaamliibaan ka soo anbabaxay ee uu watay ibraahim dhagaweyne ee buurta sheekh galay ciidanka yaga waxa watay ibraahim dhagaweyne iyo maxamed cali saraakiisha kale ee xigeenada ahayd waxaa ka mid ahaa cabdilaahi cudde allah yarxamo cabdirasaaq kambayare iyo 3 mujaahid oo naga horreeyay oo sahan noo ahaa oo watay madaxdiin oo ay ka mid ahaayeen aboole allah yarxamo oo beri dhaweyd ku dhintay meesha la yiraahdo ceeri gaabo waqtiyadii caare iyo lahawsha laga shaqeynayay isagoo ka shaqeynaya nabadeynta mujaahidkaasi allah yarxamo raaximiin iyo yaasiin buuryare mujaahid loo odhan jiray oo ay dheerkii qur'aan naga dhintay saldhigga burco hortiisa markii aanu ka anbabaxnay kaamliibaan waxaanu ka talownay meesha la yiraahdo laan mulaaxa iyo xaaji saalax dhexdooda toos baan u soconnay waxaanu wadanay dhowr gaari oo waaweyn iyo 2 gaari oo yaryar oo la kuruusala ah waxaanu ka galay buuraha meesha la yiraahdo go'da yar oo hore aanu yar dhaafnay dooxa la yiraahdo dixaab halkaasay baabuurtuna dhigtay markii halkaana dhigtay baabuurtii waxa aanu kala degnay wixii rasaas aanu qaadan karanay wixii rasaas ahaa iyo wixii miina ahaa waanu kala degnay gawaadhidiina waxaan ku nidhi gaari walba sidaad isu badbaadin karayso adiga yaqaana 2 laankuruusal jaadlayaal bay ahaayeen iyagu burcaa bay toos u galeen gawaadhidii waaweynaa
mid ayuunbaa yidhi aan isagu burco geli karin oo ahaa gaadhigii dhugad oo waday jamaal dhugad oo siisowa kaasi isagu wuxuu yidhi waa lay garanaya de anigu intir baan ahaa marka horeba joogay qaaxooye sanam la shaqaynayey anigu waan nasiibinayaa toos baan soconayaa ciidan siiya deedna 3 mujaahid baan ku daray oo haysta oo la noqday gaarigaana waxaa lagu qabtay meesha la yidhaahdo gocon dhale ayaa u galeenay ku qabteen laakiin way ka badbaadeen 3 mujaahid iyo isagiiba dixadka aan ku degnay miinadayadii iyo rasaastii wixii aanu qaadan karin mooyaane wixii kale dooxa laftiisa ayaanu ku aasnay wadada ka timaada calaa culle ayaa la yidhi dadna aan iska soo miinayno miinada inamadii xidhaaya 2 inan oo aan mid xasuusnay iminka magaciisa hirdi la odhan jiray ayaa markii ay miinada xidhayeen miinaduna waxay kuwa miinada ruushka way diiqsantay qarxiyey markay siladan ku xidha ayaa la kacday 2 mujaahidna halkaas inaga shahiideen dabadeeto waxaanu maray halkaa ayaan uga baxnay tooska meel la yidhaa halo ayaan ku soconaa markaa guud ahaan tiradu musaahid markaa guud ahaan tiradayadu waxaan ku qiyaasayaa ilaa 130 ilaa 135 hadii jeer 125 waan maqlay laakiin qof sixi karaya adigu ilaa 135 ilaa 130 baan ku qiyaasi karaa waayo anagu qaybteedu tawakal baanu ka nimid qaybina waxay ka timid sayid cali marka inta badan ismay garanahaynba waxaan ka tirsanaa anigu kooxdii taliska aniga iyo baajaxaad jaamac baash garaabo jaamac qarash deedna waxaanu tagnay meeshii la odhan jiray halo intaanaan tegin ayaa waxa aanu diray unug saxanahoo hore u socoto halkaa naga soo eegta unugtu way baxday waxay iska ka hor yimaadeen koox faqasho oo saxana rasaas bay isku rideen iyana way ku rideenoo hal mujaahid oo iid la odhan jiray ayaa halkaan naga shahiiday mujaahidiinta way noo soo noqotay waxay idhahdeen iid way ku dhacdo waa annagoo dooxi xulanno bay dusha nagaga yimaadeen adugu waanu iska carrowdhay galabtii ayaanu hala tagnay ceel biyaaba hoostaa buurta dusheedii baanu fuullay halkaasaanu ka anbabaxnay haddana markaanu dhowr cisho ku jirray ee aanu ilaa 3-4 cisho aanu ku dagaalamanay oo ciidan waxa la hayaaba berbera waxa ka soo baxaya baashii ka soo baxay inta baabuurta halkaas soo dhigtay inta noo soo lugeeyaan markay buurta hoosteeda yimaadaan ee aanu layno haddana qaar kale la keenayay markii dambe waxaan ku gaadhnay inaanu ka baxno halkaa oo aanu tagno meel la yidhaahdo kal waraabe oo buur kale xagaa ka xigtay buurtana sinteeda ceel baa ahaa halkaa oo reer miyigii meesha joogay hilib baa naloo sii dhigay inta la qalay la sii dhigay annagoo iska socon habeenkii oo dhan sii soconay markaanu tagnay waxaan ugu tagnay hilib karsan oo meeshii noo yaalla halkii baanu maalintiina joognay hilibkii iska cunnay dee maalintii maanaan socon jirnay habeenkii baanu socon jirnay maalintii nin walba geedka dhasoqaa ayuu ku gelayuu soo egeysiinayay cadowguna nagama maqnaanayn halkiiba maalintiina noogu yimaadeen waa ku dagaalanay gabalku markuu noo kala dhacay ayaanu ka lugaynay annagu haddana waxaanu tagnay meel biyale oo sheekh agteeda ah dabadeedna waxaanu diray 3 nin guray diin qala la yidhaa iyo nin loo odhan jiray allah yarxamo aadan garoof iyo jaamac qarash waxaanu kalluun iyo roodhi iyo waxa ay noo soo iibiya sheekh soo iibiya sheekh bay tegeen principalkii sheekh oo axmed daahir loo odhan jiray markii dambe asrab uu noqday ayaa bay tegeen gurigiisii waxa way ugu tegeen madaxdiin iyo
iyagoo jooga gurigiisii nimankii laga soo horreeyay 4 cisho saanka ahaa dabadeedna waxa qalba qof baa la diraayo dukaamada kalluun ka soo iibiyay midho adu kalluun yar bay noo keeneen habeenkii goor dambe iyo biskut ruudi waa la waayay biskutki glucose-ka loo jiray dabadeedna laba waliba xabad yaroo kalluun ah iyo jeex yaroo biskut ah ayaan halkii ku cunay salaadii horena waan ka kacay meeshii dawga sheekh baan sidii ku galay maalintii oo dhan dawga sheekh baan haysanay ku dagaalamanay ilaa labadii baan dawga sheekhna ka baxnay meel salaweel la yidhaahdo ayaan ku soo dhaadhacnay galabtii oo barida aad ku soo daadegayso laakiin hoosta biyo leedahay halkii baanu tegnay raashin aanu ka soo qaadanay gadbado raashinoo sonkor iyo bariis ah oo gabadhadii aanu kala degnay ayaa nin waliba gurigiisa farqiisa intuu qaadi karo ku soo qaada halkii baanu wax ku karsanay gaawitooyinka ayaan ku karsanay nin waliba ishaaha iyo bariisa iyo wuxuu karin karo halka subaxiina waanu ka baxnay meelan kaba fogeen baanu buur ayaan fuulo dabeedna halkii ayaa faqashis noogu timi halkii baan ku dagaalamanay maalintii oo dhan gabalka baa noo kala dhaco way naga tegeen waxaan soo sheeka dhaafayaa halkaa sheekh markaanu ku jiray ayaa ciidankii maxamed cali iyo cabdillaahi cudiye cabdirasaaq iyo ay wateen oo xagga sheekh xigay oo halkaa magaalada sheekh xigta dhuubta yaroo buuran ee u xigta ku jiray ayaa ka baxay halkii markaanu dee in badan ku jiray dee isgaadhsiina ma haysano waxaan baan ogaanay mar qura iyagoo baxadoo u baxay xagga ah iyaguna waxay u fikireen in gurmadku meel walba naga soo gaari karo oo ay tahay inaanu iskaga baxno iminka annaguna waxaan halka dhexda ku leynaynaa jihaad iyo ciidan dhan oo ka yimid xagga berbera oo aanu halkaa ka daawanay ilaa markay ka soo baxayeen meesha la yidhaha hudiso dabeedna markii aan ku waalayna doonay inay baxaan ayay dhegaweyne iyo cabdisalaan yaasiin iyo aadan garuuf saddexdoodaasaa nin nigeria ahaayoo hay-ad u shaqaynayay un-ka lanlower bogosa oo uu watay ayay ka haysteen ibraahim dhegaweyne iyo aadan garuuf iyo cabdisalaan yaasiin si aynu ciidankeena halkaasi u teganaa waxaynu odhanaynaa waa ciidanku ha ka baxo meesha dabeedna siday u socdeen baaba ciidan bay arkaan meesha soo jooga halkaa karinta soo saaran ee buurta yaragteeda shoo ciidankuba waa ciidankii sheekh oo ciidankaygii mar hore ka baxeen aanlowarka markuu sidaa isu dhex taagay ee aanu arkayno ayuunbay rasaas u fureen nimanka de ibraahim baa u horreeyey tubooday xagga jar yar bay leedahay halkaasi oo jarkaa soo galay ayuu ku furay nimankii intay ka degayeen ina garuuf iyo cabdisalaan waxa weeye ibraahim baa ku ridaayey deedna jeexii hoose bay soo raaceenoo halkii bay noo yimaadeen lalowarkii halkii ay kaga yimaadeen oo laga qabsaday marka sidii baanu annaguna ku baxnay dhan ay u baxeenna ma garanayno laakiin waxaanu filanaa inay xaggaa wagareed ay u baxeen annaguna annagan xaggan kale u soo baxnay waanu soo soconnay halkaas salaweel habeenkii ay u hoynay wax ku karsannay halkaa saanu maalintii ku dagaalanay waxaanu leenahay xaggaynu ay u baxeen ciidankii bal maxay sidaynu u ogaanaa bal inaynu cid ka helno aan ka daba tagnay dhankay u baxeen maalintii labaadna waanu joognay maalintii hore ma ku dagaalanay maalintii labaadna waanu joognay maalintii labaadna haddana 2 gurmad baa nagu yimid oo 2dii gurmadba gabalkaa isugu kaaya dhacay talabaad baan go'aan qaadanay markaasaanu idhi waanu soconaa waanu baxnaa halkaynu baxnaa ilaa xaggaa gacan libaax iyo xaggaa deedna halkaasaanu soo marnay buurtan garbadiir la yidhaahdee laasada cawiyo beeshan ilaa hudisa halkaa afkeeda ku haysa xaggana gacan libaax baa dusha ka saaran oo waa dul bannaan
taasaan dushaasaan raacno gacan libaax fuqeeda xaggan u jeeda anagoo raacana meel waxaanu gallay boqaal la yidhaahdo halkaa boqaal la yidhaahdo nin baan ugu tagnay cabdi nuur la odhan jiray muse cabdallaahi halkaa ku jiray oo lixle la shaqayn jiray deedna halkiibuu dibi yar buu noogu qalay habeen baan u helinay waanu ka soconnay amar xaasil waan soo koobkoobayaaye waxaan u baxnay dusha gacan libaax habeenkii o dhan waxaanu soconnaba waxa waagu noogu beriyey mashruucan gacan libaax meesha mashruuciiba moodi mayno laakiin aydiid cagajar baa naga wada hagaagsanoo wuxuu leeyahay waa mashruucii gacan libaax dabadeedna waxaanu aragnay dergada halkaas iyo dad show ciidan baaba degan dabadeedna ibraahim dhegweynaa yidhi koox intuu ka haystay bal waan soo eegayaa ayna keenoo ciidan buu ka haystay koox ayuu naga ka haystay dabadeedna sidaasoo kale nooga kaceeno markay halkii ay gaadheen ayuunbay rasaas ku bilaabeen annagana jeex weyno ayaa noo dhexeeya dabeedna markaan oragay ku bilaabeen ayuunbay iyaguna fuuqii gacan libaax unbay saa uga degeen jeexeedii ayuunbay hoos uga degeen ibraahim iyo xagga iyagiina dee uma soo noqon karaan xaggaasi iyagu dhaadhaceen waa kala go'deen markaa waanu kala go'nay annagu dabadeedna hal godkii jeexii weynaa noo dhexeeyey intaanu ku dhaadhacnay ayaan haddana ka baxno dushii baan u baxnay halkii ay ku rasaasta kaga soo rideen nimankii baanu la dagaalanay waanaanu soconanaa waanaanu dagaalamanaa marka gacan libaax jambigeeda xiga waqooyi ayaanu maranaa fuqeeduna galbeed buu soo yara eegayaa moogtay gacan libaax markaa ilaa fuqeedaasaanu soo soconanaa deedna waynugu soo ridaan xaggaasaynugu annaguna kolba waanu iskaga reebana waanaanu soconanaa annagoo fiila ah gacan libaax fuqeedii baanu nimid weliba waxaanu is soo taagnay qaybtan u soo jeeda daldawan ama deri maraaca meesha la ydhaha halkaasaanu dabeedna nidhi waryaalen aan isku qayban waryaalen waynu baxanaa waxaanu loo tallaabayaa qaaxo faqashtina waa arkasaanoo ilaa iminka wataas daldawan deri maraa wa kuwa halkaa iminka wada joogaan wada marmaraya xaggana waa kunayno daba socda waxaanu yeelanaa si aan meel aanay noogu soo wada hagaagin 5 10 intii israaci kartaaba waxay israacaan cabdisalaam yaasiin baa waxoogay lacaga sidoo baagdhabar ku xambaarsan dabadeedna qaar baa yidhi waan annaga shabac iyo ina cawl iyo xaggaasaanu marana ina xabal marwaayo xaggaasi mareen iyaguna laba isugsi kala qaybiyeen waxoogay lacagay ka qaateen annagoo 15 ayaanu cabdisalaam yaasiin iyo soo raacnay iyo aydiid cagajar markaa waxaan nahay 16 baan nahay waxaanu ka soo dhaadhacnay halkaa dal soo eegaysa daldawan dabeedna waan soo soconoo laag daldawan toos ugu soo baxdaa ayaanu soo xulla sidaan u soo soconnay ayaanu soo gaadhnay daldawan makhribkii dabeedna waxaanu aragnay iyagoo gacmaha is haysto waddadaba saa u xidhay gawaadhiina sidaa wareegayso laba gaadhi oo gawaadhidii sabax ahaaye ayaan daranta la odhan jiray militariga wadan jiray kaa iyo gaadhi kale deedna laagodan baanu fadhiisanoo saanu idhi gabalku hay naga madoobaa inaan fadhiisaya halkana annagoo fiiladayadii aanu saa isu daba fadhiisano dee halkana waa halkii waddadii aanu ka tallaabi lahay weeyo iyagaasaa u taagan waana halkana madaxaanu ka qarsanana intaanu sidii u taagnayn ayaa kuuna daba socday ayaa xagga dambe naga soo gaadhay laagtii aanu ku jiree jarka lahayd ayuubay dusha si kaaya soo taagan markaasuma waryaa qormis kuwii dambe isdhiiba dee way naga sarreeyaan annaguna waa naga hoosta ku jira markaasuu aydiid istaagay dee kaalaya waaye mar baan wada kacna isaan qoriyii taagna 16 kuwan hore markaan arki maayana kuwii dambeena daba socday un baan arkay ma garanayso deedna isku go'aan baanu nahay haddana waxba ismanaa weydiin isma dhiibano deedna xaggoodii baan u wada jeesanay
markaan jeesanay mar qurun baan ku yaacnay annagoo furana rasaastii nimankii xagga dambe naga haystee markii horena jilibka dhigay isdhiiba yidhi markii aan qoryaha taagana kaakacay ayuumaanu iyagii maan kula yaacnay inagoo ku ridana rasaas dee iyagoo daadanayaanu dhaafnay markaanu dhaafnay ayaanu laagtii dib ugu noqonno xaggaasana haddana u kacnay bari jeexjeexyaroo kaleanu raacnay aduu gobolkii baaba madoobaaday markaasaanu ka talawnay dooxii waanu soconnay habeenkii buurta dhinaceeda dooxa daldawan xaggiisa sare ayaanu reer u tagnay lax baanu ka iibsanay reerkii waxba kusii raagi maayo waanu dhaafnay laxdayadii baanu iska cunnay shaah baynu noo karisay waanu iska soconnay buuro halkaa ka soo jeedoo dulmeegaag la yidhaahdo ayaanu dusheeda fuulnay waagu markuu subaxii ayaanu dhakada u baxnay dusheeda doox baa ka dilaaca la yidhahdo doox wiilgal la yidhaahdo hareeraheeduna xaggan waddooyin baa maro oo dhinacan waa ka dhul xaggan aanu ka fuulnayna waa ka buur markaa waddooyin baaba mara waa ban jeexaa yare dooxeed ka dilaacay yahay mooyaane dabeedna wuxuu caydiid baa yidhi jeexanaynu gelanaa maanta baabuurta waa suuqa halkan yaacaya baabuurta mee bartaynu gelinaa ilaa haddii kale bannaan kale u bixi mayne annaguna waxaaban leynay aan dib noqonno buurta intaan dib ugu noqonno dooxaa daldawanee hoose aan ku dhaadhacno waana mee bartaynu gelinaa halkan waa lama filaan buu yidhi halkaan iska filno halkii baan iskaga joognaa maalintii cid maanaan arag waan iska soconna gobolka markuu dhacay markaanu soconnay ayaanu reer ugu tagnay halkaa ku yaal reer degan halkaasoo muuse cabdallah oo dooxo xaggiisa hoose degan ninkii ayaa wuxuu yidhi dee waxaanu nahay 15 nin baa halkii nagaga laway moogti jeexjeexii hore daldawana naga helay nin haliil loodhan jiray allah yarxame oo intii rasaasta aan ridanaanu ka dhex baxnay ayuunbuu isna soo ridayay uunoo waanu kaga soo kacnay meeshii deedna nimankiin baabuu iska dhex raacayoo oo uu la soo tallaabay isaguna markii dambe gooni uga soo baxay gabalkii dhacay mabay ogaan ninkan la socda ka nabad galay markaa 15 baanu nahay dabeedna reerkii baanu tagnay ceesaan yar buu noo qalay waan waxba nagu tarin dabadeedna waxaanu ina mariya haddaba waanu soconnay markaan waxoogay soconnay ayaanu nidhi qoryaalaheed ee waagu beryaayo ayaanu nidhi maanta aroorta waxaanu soo gallay aaggii xidhnaa waatii loo sheegay ilaa harasheekh ilaa dhulkaasoo dhan ay xidheen harasheekhna inay talis ka dhigteen qaybtii 16aad oo dhan ay degan yihiin oo ninkii cismaan fitiig la odhan jiray iyo green ninkii la odhan jiray taliya qayb ku-xigeenka labadii ay joogaan meesha marka maanta iswaayimayna inagoo soconno mooyaane inagoo ay fadhina oo harsanana yaynaan cadow ishelin laakiin intaynu soconno iyaguna wayna daba soconayaanuuno laakiin isa soo gaari mayna markaa laakiin haddaynu fadhiisanno markiiba waynu soo gaarayaan waayo xaggana raadkeena waana laga gurayaa xaggaana waa inaga imaadee kabii waaweynaana waanu xidhannahay waxa weeye raadkan jeexnaa waxa weeye taayir gaadhaad muddaa amar xaasil wuxuu yidhi caydiid iyo cabdislaan iyo may waynu waagu halkuu inoogu baryaanu harsanana u joogana dabadeedna waanu iskhilaafnay 7 nin baa yidhi waa soconana dabeedna anigu 7 baan yidhi wallaahi 7daasaa dhulkana yaqaana ee iska raac waana ciidankayga weliba tawakal waan raacan 7daasaa raacan waxaanu kaga tagnay caydiid iyo 8 kale ayaanu kaga tagnay halkii ilaa 15 baanu haynay 8 baan ku tagnay 7 waan ka tagnay dabeedna waanu soconno sidaan u soconnay ayaan ku soo baxnay reer beer nin muuse cabdulli leeyahay ninkaa ina awdayuur baa la odhan jiray waxaana la socdaa 2 ninoo
muse cabdullaaho abakur loogaa oo ay isku sii family yihiin ninkan beerta leh nin xirsi tootoolo loo odhan jira allah yarxame iyo allah yarxame jaamac ramaaqiye jaamac farcadde way isu sheegeen inaan nahay asran waxaan ku nidhi waxaad noo karisa ma haysaa shaah iyo maybuudu waxa ma hayo haddaba weysooyinkan inuu biyo noogu shubo biyihii baanu ka dhaansan waxaan ku nidhi inaad dayurooyo bay yidhaahdeen xirsi iyabaa ku odhanaya jaamac haddii faqash raadkayagaa haysaa ay kuu timaaday ku tahdo nimankaa maaragta raadkayagaa soo tuso waa ku halkaa maray dheh laakiin inaan mid baanu kaa codsanana annagu waxaan qofkan ciddaan u dagaalamanaa waa adiga kuwa qofka aanu doonno inaanu dhimanno isaga iyo carruurtiisuna nolol wanaagsan ay ku noolaadaan waa adigu inaad haddaba ha cararinoo hana soo sheegin adigu intaad harasheekh tagto ha odhanin nimankii baa halka marayo hana soo sheegin wakaa yidhi waayahay idin soo sheegi maayo annagaa iska soconnay sidaan u soconnay ayay yidhahdeen dee nimankii dalka garanayay walayaal ciidankii baynu ku dhownahay tooyo harasheekhna xagga galbeed baanu ka xignaa ma garanaysa waa ku dhownay laakiin war haddaba saacadduna waa koodiya barhkii waxaa yeesha aan kayntan harsano haye haddii kale ciidankii baynu u baxayna bannaankii waaye baad yidhi haddaba waaye kayntaasoo harsan mayno meeshu waxay leedahay qasax aad moodin ilaahay beeroo laynlayna oo laba layn dhexdoodiiba waa bannaan haddana layn kale iyo duur isku baxay marka waxaa la yidhahdaa qansax baa la yidhaha meesha qasaxa dhooba weyne ama beergaalaadda wax ay kaasaa la yidhaha dabadeedna waxaanu yidhi haddaba raadkeennii sidaa ma u soconnay aan la soo noqonno garabkiisa si kuwayna raadsanaya marka halkaa marayaan aynu aragno deedna kayntanaan galo sidii baanu soconnay marka weli waa ladinku raad gurayaa way idin daba socdaan qaarna waana daba socdaan qaarna waxa weeye raadkay hayaan qaarna waxa weeye hawadu waa xulan tahay haa way naga sii horreeyaan oo taliskiiba wuxuu degayay dee harasheekh shalayna waa tii dee laga helay bahashii xasan qudaar qoladii xaggaa naga martay ay kaga tegeen dee faysal xabal marwaayo wan maqlidha dee rasaastadii dagaalkooda markaan anagu dooxa weliga ku jirnay kayntii baanu sidii ku gallay deedna waxaanu waryaareen gaari naga qabto ka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waxaa yidhi xirsi baa yidhi ka koowaad anaa qabanaya muuse biid waa u naxariistay mujaahid la odhan jiray labadooduba wuxuu isna yidhi anna ka labaad baan ahay anna waxaan ku yidhi ka saddexaad baan ahay waa kayn jiqahoo duur bay leedahoo dee hadhna leh waktiguna waa jiilaalo waa marka durduhu sanka kaa galo kaynta caleynta ka wada daadatay deedna kayntii ma saa eegno waxaan markaanu kayntii gallay waree ayaan ku yidhi waa saddexdeennan gaadhka u horreeya leh ilay cadowgu markuu halkaa maraayo arki mayna haddaynu kayntan ku jirnay geedkaa koonaaha ee hardacaarkaa ina geeya waa geed galoola marka waayo geedkaa anagoo fadhiisano mooyna geed kale arki mayno markay halkaa marayaan ayna dhaafayaan raadkayna hayaan waa runtaa bay yidhaahdeen geedkii baanu waa geed galoolahoo xabad caleena ma leho waa hardacaaro halkaa jiridaan isku beedho anigu booshkaygii laabta kii dhinaca waan xidhanahay intan bixiyey ayaan isigii qorigii barkada dhinacna waxaa iga jiibsaday muuse bidoo kii igu xigaa xirsina halkan ayuu fadhiyaa anigu iyagoo sidii ayaan gama markaan gamay jiridaan ku beegnahay ayaa waxaa dhacday iya hurdi ayaan riyooday mucjisaadka dee halgankani lahaa ayaan kuu sheegaya waxaan ku riyooday anigu nimankan uma la socday dalkamaan garanahayn waxaan ku riyo inaan yarana dawana waxaan ku riyooday iyadoo ay layga tegey anigoo seexdayoo anoo gamacsan ay iga tegeen dabadeedna waan booday deedna dhinacaygan baan ogo xirsigii dhinacniga xigana waan waayay muusihii dhinacniga xigana waan waayay ishii aan soo celiyey ayuun baan arkay laba fiilo oo dhaadheer oo raadkaygii intay la soo noqotay iguba soo dhow oo dee iiba soo jirtaa inta iyo midulka
بروبيلايت كاب من ذيك اللايت كيس كاسان وياه ولا قاتي قبلنا أنا وبيرك وشي فين لما بوديني أيام تبقى وخينتيو وحنا كيقا لبنو تشلبقيل شري حرسي يمد كرايين تشلبقوا ذاك تشلبقيل شرينيا أيام كينتي كراحك كاسان كورو والله فقستنا واطن لما كنا وقاسوا ولا تشيفا حتى ما حدا يشم كل ده بوشكي قريب أساسي وقت كاسان ما يح كل دينا إلا تذكر دكونا وعيانو كل ده لبدر أساس بحدود تشيل ساي بود حتى بواد وقايلين يا وقت إلا جيت كنا لابيه سروا وافيرو وحبا والله قال حرقيا شري دابو يعني مركز سنا مدح ولا كاي أي ولا خرب حين markan ay soo socdaan iyo hareerahana waa banaan inta ka inta ugu beegaran ba inta ka inta ku jiro ba line kaas ba kayna wuxuu soo kala baxay dhagaga labadii horeeyna pass bis ay soo furo anigu ordayo markaas sidii wax rasaasta u jarjaraya ayaan ka feynta dhexdooda ilaa jinkadan ugu ayaan soo tuuray waqti geedku soo kooriyay ee dhexdooda markaas aan tashirad ku furo geedkii qasaxayaan ku jiray intan leega dhinacan kale ka soo fariista wariya lagu dilmaayo sidib waa 40 bid ku xeynti kala xagan mid waliba wuxuu leeyahay sidib lagu dilmaayo wariya nimankana waxa lagu yiri waa 8 nin oo ninkii naga warbixiyay soo sheegay waa 8 nin oo baqteeyo oo haraadan oo waxbeen deedna isma fitiga green baa u soo dhibay jawaano waxay yiraahdeen ama jawaanada hilibkooda ku soo gura ama iyagoo nool keena marka ninka soo sheegay waa kii aad tiraahday raadkayga soo tus ina uu dayo oo de Musa Abdullah Bakr looga dadna waqa aan sidii ayada ba sidii bas Allah ay qaada horta ninkii ilaa 5 iyo 20 ayaan halkii ka dhignaa kayntii baanu dhex raacnayo markii kayntii de nagu ulush maamadii macawstiin halkii baanu safraan iska baxno dhex raacnay dadna halka horaan qayn kale ka taloona halkii baan jaamacada baynaga dhaacnay ku xidhna iyagu halkii ku miisaaya ayaan horu yar socno kayntii markaan soo uga baxno ayaan aragnay gurmad kale 40 kale gaari dhigay halkan agteeda oo ku sii socda halkan rasaasta ka dhacaysay kuwii baanu ka fadhiisano wayna dhaafeen kaasaan horu yar socno waxaan u soo noqonnay markaa waqooyi galbeed waxa weeye u bixmayna xaqii bankida ayaan u baxnaa hadii kale dib baan u soo noqonnay oo waqooyi haddana galbeed raacsan dabeedna xogay markaanu soconay kiina xidhnay ayaa kuwii cusba 40 dambe cusba ayaa raadkayga soo qaaday haddana deedna waxaan waraara 7 talaabaan isu jirsano kayn qasxiyo ayaan sidaa u galay oo dheer markaan maqalay iyagoo dhabaagoodii iyagoo soo socda wala daba socdaan halkaan ilaa inta aad u dhacsay qiimahaynaan kula meeraysananahay 7 talaabaan isu jirsanay sideedayadii waxaan markay kaynta ka soo baxaan ay banaanka u soo wada baxaan kayntiina aanay soo gaarin mar qura dabka halasa nin iyo taashirad markay sidaa ugu ridno ayaan waan dhaqaaqana markaa u jeesanana laakiin banaankaas soo wada baxaan kayntiina soo gaarin marna deedna iyagoo dhabaagayo qaarna raadkii hayaan qaarna hareera socdaan oo aan fiila ahayn oo saf balaadhana aan ahayn dhex socda ayay kayntii ka soo baxeen banaankii bay soo intaanay ka taayadiina soo gaarin ayaan mar qura taashirad saar way isku wada dul daateen halkii banaankii annaguna kayntu waxay leedahay suryooyin arigu baneeyo la marmaro suryooyinku baan annaguna saa u dhex galoo marmaro mid baaba 7 saa ila fadhiisto loogu markuu dhigan si dhaqaaqayaan arkayo markuu la sida ugu soo ridana geedku ma saayro xabadiisa bareed saasay dhaafto markaasaan taashirad kale ku riday anigu laba taashiradood barida baaragta horaan u socon waa kuwa halkii ka qaylaya kama baana fogaan talaayo wariyaara warnimku waa mid wari naga reeba wari qaada waa ka qaada kuwa horada saasay u cabaadayro
iyagoo isguraayo isqaadaya ayaanu ka tagnaa calaa kulli xaal halkii baa gabalkii gaabtay kayntii baanu kolba ku yaro meeraysanay deedna toos markii gabalku gaabtay baanu toos u soo soconnay waxaanu idhi bankaynu caawa jeexanaa waddadaa ka timaada qolqol iyo cabdi faarax dhexdooda duurcad halka la yidhaahdo ayaanu ku toosinaa dee nimankii dalka yaqaana halkaas sahmiyey ma garanaysaa ina mariya waanu soo soconnay bankii baanu soo baxnay bankii baanu soo haynay waxoogay oo markii 9 habeenimo tee bankii aanu hayno dee magalabtoo dhanna maantoo dhanna aanu dagaalamanay ninkii dhaawac ahaan aanu wadanno ayuub baanu aragnay wax adoo bankii ka cad waxa cad waa maxay horaan u kala baxno wixii baanu eegnay waa ku dhowaanay 3 baa horoo kale u sii baxay waxa weeye foosta afgo'an oo afkaa 2 jawaan oo cadcadoo jawaanadan raashinka ah oo la isku tolay ayaa afka saa loogaga xidhay xadhig la soo xadhkaan maydhaxda ana saasaa loogu xidhay markaa foostada rubuc ayay sidaa ugu dadan tahay bacdu ilaa afka sare xadhiggaa saasaa loogu xidhay waa taabanay waa foosta awda markii aanu aragnay waxaas aanu taabanay inay bac tahay oo foosta afgo'an ay ku xidhan tahay foostada biyaa ka buuxo waa daf mucjisooyinka halgankani lahaa ee aad la yaabaso ee aan mar ahayn 2 ahayn 3 ahayn 4 ahayn 5 ahaynna soo maray aad garanayso inuu ahaa halgankani mid ilaahay wato ayaan halkan inta daawan doonta aan ugu bayaaminayaa iyo halgankan lagu jiray inuu mid xaqa ahaa oo ilaahayna wato ilaa waqtiga aan ku jiro imika taas Soomaaliland cidina waxa ma yeeli karta ilaahay baa wata marka waxaan ku yiri marka aanu eegnay foostadii waxaanu eegnay bal wax bal inay cid degan tahay wax ciidahoo degan oo sanqadha ayaanu weynaa 4 tajaabo waan u kacay waa banka tuuyo bartankiisa waxa aanu eegnay bal in wax taayiro raadi ay dhigeen ee ay soo galeen ay biyahan ku shubeen tiina waan weyn waxaanu isnii haddana malaa berigii hore dee ilaa imika inay abaar tahay waanu ognahay ayaa malaa meelahana dhijaama ahaayeenoo laga dhaamiyayo waa lagaga tegay wax dhijaana iyo wax xorfad yara oo eeriyada ka dhowna dhan walba waanu eegno waan weyn maxaase aan ka sii yaabna waxa kale naga sii yaabsay oo mucjisaadka ku jira biyahani bankaa foostada biyihii ku jireen ee bankaa taalay ee bacadkii oo dhammi hayee birna ay tahay waxaad moodaa in inay tallaagad ku jireen tallaagad qaybta normalka amaartay qaybtan ayska ama qaybta normalka ay ku jireen biyo tallaagad ku jiro qaybta normalka ku jiray ayaad moodaa biyahan ay laga iibiyo tallaagada laga soo saaro ayaad biyaha moodaa dabadeedna waxaan nidho war waa wax ilaahay inoo keenayo waa taasoo cid dhigtayna ma jirto midda kale burarka dusheedii cawskii ayaa la duldhigay markaa inay sidii wax xagga samada laga keenay oo la dhigay ayaad moodaysaa dabeedna waxaan nidhi ilaahay baa inoo dhigay yaa awliyadii war cabba dee biyaha miyaad kaba dhirgasaa haddana biyaha macaanka yaa iyo awoodda ay ku gelinayaan uba dareemaysid deed masana wejigiina ku falfool dhaqannay markaasaanu ku shubannay weysooyinkayagii deedna waanu soconnay markaanu soconnay banku wuu fara badan yahay ninkii baa yidhi socon kari maaye bankaa maydinigaga tegin dhaawac ahaa dabeedna waxaanu ku nidhi kaa tegi mayno laga tegi maayo war maynu ka tagnaa bal aanu tashanno halkaasaanu isula baxnay waxaa laynu nidhi haddaynu ka tagno kollayba faqash baa silcin lahayde aan dillo laakiin isagoo nool ka tegi mayno go-aan baan ku gaadhnay inaanu dillo hadalkayagii buu maqla markaasuu yidhi waryaadhan ha igu dhagaroobinayay
وان لودا يا ولد الراعي إلى مريا نكي بان تدنا حق هوريس كمرنا وريحنا ساعة بساعة بنكاسي فروينا سيدا نوسعنا بنكي عن سوق بسني تضبطي إلا الحدية بركي قلبنا وحا إلا تضبطي الصبح نما أيانو قرع تلتيلا إيران كي كالي طلعودن عنو طلعودن الله نحرسته حرسي توتولا يدحبا والملا ميشا وياهي خبر دمان منو والملا حنشرتين تعلم أنت سيدنا سعنا مددنا وضدي قول قولي عبد الفارح وكل بحسي أيان قتلون حدنا دور عد ماشي لها أيان قتلون أكتي إذا مرخن مرناي جمع حماقي الله ونحرسته ورياله واركبها يقول الحرين هاي قريقة هي عن حرد خلاحين وكبي توبيانو بور هذا عن الحين حرد خلاها أنا إسية ما أنتنا كل فقش إسواي مني إذن كنا يجتكي ميسانا ويقولوا لي منصة إن ما إذن لا تهين خلاها حدو أنا أقولني إسقى بيرو إذن كنا عايز كالصعوتان كاسان ولها deedna 3 qasnadood baan isugu xidhnay 2 bombana waan siinay booshkii kale iyo wixina waan ka qaadnay waxaan ku niri hadii de marka aad dagaalanto hadii sirahan gacanta ku dhig bombada de uga jara adiga isagaba iyo kuwa siraa qabtada marka isna soo bombaanayo de meel gooni aad iska baro burar buu si joogsado uu naga bayra anaguna toos baan isaga socono anagu waxaanu ballan qaaday markii aanu ku dagaalamayay dhoobo weyn waxaanu arshaq saxaaq inoo qabto shaqo saxaaq baa ugu dhiga fudud awliyadii ya shaadaliga aan qareenaay maanta noo gurmo ya de gurmadkiina waan helay deedna markaan duurcad ku dhownahay baa inay yaro geel la jooga ayaan ku nidhi adeero duurcad ciidanka mii joogaan markaasuu yidhi haa way joogaan baa lahaa galabto reer saaka shalay galabo laga soo carraabay way joogaan haa adeer waayo waxaad yeeshaa annagaa geela kuu sii ilaalinanay magaaladan waan ku dhownay batuulaha orodoo waxaad noogu soo iibsaa 2 kiilo oo sonkor iyo baakad sigaara iyo shaahidi inanka yar waa inuu ilaa 12 jira laakiin inuu yaro friida marka duurcad sidaas hawdo kale noogu qumanto waqooyi baan ku xignaa ma duurcad baa leeyahay dadna ka yaraba carrayo annaguna geeli waan iska dhaafno waanu garab raacnay ka yaraba galay magaalada geed baan fuulay dheer oo quraco kaasaan eegno sidii u socday uu ka dhaxbaxay dirgada yar yaro waa biiro halka ka soo jeeda ayuu gala markaasuu ka soo iibiyay soqortii iyo wixii oo soqortii sigaarkii ka soo qaaday ayuu haddana baysuu yidhi wararkana faqasta dhexmar maraysa magaalada kadib ka soo dhaxbaxay haddana sidii u soo ordayay qasaan 2 diraan qabatay noo sanu yar qasaan waxa lacag yar siinay oo quruusha soqortii iyo sigaarkii waan ka soo qaadano markaasaan dhinaca ka dhaafnay tuulihii waanu soconnay reer baan u reerkii baa shaahid noo kariyay anu kari waa shaadalagii sheekh saxaaq weli shaah ka waxtar badan maan arag baalku shaah caana riyaad leh ay noo kariso gabadh wanaagsan dumarkaana geesisanaa waxaan nagu tiri warkii hadduu reerka lahaa baadigu ku maqan yahay hadduu yimaado imikuu idin soo sheegaya kayntaa fadhiista annagoo iska ilaalina gaadhna ka hayna reerka wax soo gelaya wax ka baxaya ayay shaahi noo keentay shaahayagii ayaanu cabnay dabadeedna markaasaanu dhaqaajinay maalintii dhow habeenkii casarkii intii oo dhan sii soconnay gabalkii baa noo dhacay waanu soconnay gudihii baanu dhinaca ka maray habeenkii waa berigii markuu waagu beriyey cadceeddu soo bixi doonto ayaan xadka ka talawnay go'aan dhaaliya khaatuba dhexdooda ayaan ka talawnay
sidaasaan deedna saasaan ku nabad gashay ku tagnaan ku nabad waxaad ka warrantaa ninkii jaamac ramaaqiye dhaawac ahaa ee dhexdeed jiraaday ma soo badbaaday muxuu la kulmay wuu soo badbaaday adhiba inan adhi la joogta ayaa adhi ku soo daysay kaynuu galay bahlaan riya ahi waa halis weeye riyuunbaa ka tegi waayo bif taasunbay guraanoo kolbo inta yaacaanubay haddana ku soo noqdaan riyaha caqligoodu ilaa qofka la joogaa uu ku arko haddaad dhuumanayso waxa weeye kaa tegi maayaan inantii adhiga la joogtaa deedna riyihii halkii ay kolbo ay bifta ku hayeen ayay eegtay waxay aragtay jaamac ramaaqiye wuu yeedho ku yidhi adeer wuu haybsadayoo wuxuu ku yidhi deedna nin dhaawacaan ahoo isnamahay waxaad yeeshaa inan ilaa gashaantii meelahaas ay hayd adeer adhigana xaggaa u kaxee cidna ha ii sheegin markaasay tiri cidna kuu sheegi maayee waxaad yeeshaa adhigana fogeyn maayo meelahanaan joogayaa markaa iminka hadhinada lay keeno ayaa kuu keenaya qadada ayaa hadhimadee reer miyigu yidhaha qadadii baa loo keenay qadadii bay isaga u keentay iyo biyihii loo keenay intiibuu iska cunay galabtiina galabtiina markii gabalka abtale wuu soo yaro luuday markuu soo luuday dabeedna habeenkii ayuu reeru yimi habeenkii meel buu isaga hoyday maalintii o dhan uu iskaga jiro cidna mu arag habeen labaadkii ayuu soo yaro luudoo dee nabarkiina halkaasay kaga dhacdo halkaa boodobare ay ka baxdo intaa leeg ba bannaan buracaawi baa kala go-ay deedna reer buu u qalay reerkiibuu ku yidhi intuu markay soo xaroodeen ilaa 10kii habeennimo ayuu yidhi qof idinka bixi maayee awr ii heriyeeya awr isaara iminka reerkuna jees buu ahaa haddii laba reer yahay way kala shakii lahaayeen deedna gabadhii baaba tidhi dumarkaa geysisanaa moogta ayaa tidhi awrka oo ninka qaad abjadkii baabay soo jartay abjadkii bay saartay kabaaladiina way saartay in yaroo dusha laga saarana way u samaysay dee awrkii buu soo fuulo warigiina halkaasuu haystaa halkaana waxbuu ka arkayaa isna wuu ku hoggaamiyey sidii buu xadka kaga soo tallaabiyey dee raamaaluu noogu keena